بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan dhageystayaasha nagala socota idaacadda wadanka ku soo dhawaada qodobadii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada idaacadda ku maqli doontaan waxa ugu dooroon dagaalka ka socda xarunta baarlamaanka Puntland iyo faahfaahin ka soo baxaysa halkaasi agaasimo ka tirsan dawladda federaalka oo ku geeriyooday israasaaseyntii ka dhacday Garowe ganacsada caan ah iyo ciidamo ku dhintay dagaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo si kulul uga hadlay weerarkii xalay ka dhacay Garowe ciidamadii u goostay dawladda federaalka oo xoog ku qabsaday garoonka diyaaradaha Luuq iyo wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya halkaasi Ilhaan Cumar oo lacag ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee Soomaaliya madaxda gobolka Waqooyi bari Kenya oo maxkamad u gudbiyay dacwad ka dhan ah natiijada tirakoobka dadweynaha guddiga gurmadka fatahaadaha baladweyne ee looga dhawaaqay magaalada Hargeysa xareynta odayaasha soo xulaya xildhibaanada galmudug bilaabanaysa wixii oo wakiila dabadeedyo badan u ceeriyay in ay ka gaabiyeen اعتراف raadinta iyo siyaasi Hindi ah oo sheegay in ay Pakistan gaas sun ah ku buufisay hawada Delhi haatan u diyaar garooba qodobadaas oo fidsan مسؤولين كترسن برلمانka Puntland iyo saraakiisha ammaanka xarunta golaha oo la hadlay idaacadda wadanka ayaa sheegay in weerar culus oo abaabulan lagu qaaday xarunta golaha oo ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada oo amar ka haysta ciidamada ayaa weerar laba dhinac ku qaaday xarunta si ay u qabsadaan berina ay u fariisiyaan baarlamaanka waxaana muuqata in ilaa hadda ay jirto dhimasho iyo dhaawac weerar hordhac oo aan ka helnay ila ka tirsan ciidamada ammaanka baarlamaanka sugayay ayaa sheegaya in la dhaawacay afar ka mid ah askarta ciidamada Puntland sida aan ka soo xignay ila ammaanka ka tirsan xilliga la weeraray xarunta baarlamaanka Puntland wax shaqayhi kama soconin balse waxa ku sugnaa ciidamo u gaar ah ilaalinta baarlamaanka kuwaas oo ay israasaaseyn kuwii soo weeraray ay ku dhaxmartay waxayna wararku sheegayaan inay arintani salka ay ku hayso khilaaf u dhaxeeya Siciid Dani iyo gudoonka baarlamaanka magaalada Garowe ayaa iminka laga maqlayaa rasaasta dhacaysa iyadoo ay sidoo kale jiraan waan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo iyadoo ay arintani ay tahay mid ay la yaaban yihiin maxalliyiintu dhanka kalena Allah u naxariistay ku-xigeenka agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya laanteeda Puntland ayaa goordhow u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray ay dagaal magaalada Garowe ku dhaxmaray ciidamada ay ka tirsan maamulka Puntland cabdikariin maxamed faarax dhagaweyne ay rasaasta ay isku ridayeen ciidamada waxa ay kula dhacday goob ganacsi oo ku lahaa meel aan ka dheereen aqalka baarlamaanka Puntland oo ay xalay weerareen ciidamada gaarka ah ee madaxtooyada Puntland israasaaseyn muddo socotay ayaa afafka hore ee dhismaha baarlamaanka ku dhaxmartay ilaalada aqalka baarlamaanka iyo ciidamo ka socda ilaalada madaxtooyada Puntland ee Garowe inta la xaqiijiyay laba ruux oo mid ka mid yahay askartii uu dagaalka dhex maray iyo agaasimo ku-xigeenka hay'adda socdaalka Soomaaliya faraceeda Garowe sidoo kalena ahaa ganacsada caan ah ayaa ku geeriyooday shaqaaqada waxaana jira dhaawacyo kaleeto warar kala duwan ayaa ka soo baxay cidda haysata xarunta la weeraray ee baarlamaanka Puntland waxa ayna wararka ugu dambeeyay sheegayaan inay wali ku sugan yihiin ilaaladii lagu soo weeraray hore u joogay weerarka lagu qaaday xarunta baarlamaanka Puntland ee Garowe ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu maanta fasax 3 maalmood ah oo xildhibaanada u diray gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo sida la sheegay mooshin laga keenay muddooyinkii dambe madaxda ugu sarreysa Puntland ayaa waxa ka dhex jiray khilaaf waxaana uu ka dhashay aysan cadeyn dhan kaleetana gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Dhoobadaareed ayaa si kulul uga hadlay dagaalka ka dhacay magaalada Garowe oo sababay dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada oo amar ka haysta madaxtooyada Puntland ay weerar ku qaadeen xarunta baarlamaanka gudoomiyaha ayaa yiri aniga ku hadlaya magaciiga iyo magaca golaha shacabka waxaan dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed iyo kan Puntlandba uga tacsiinaya dhibaatada ay ka dhacday xarunta golaha baarlamaanka Puntland kadib markii xukuumadda weerar qaawanay oo xaqdarro ah ay ku soo qaaday xarunta golaha ka soo galaaftay nolosha dad rayid ah iyo askarba madaxtooyada ayaa ciidanka loogu talagalay in ay u adeegaan bulshada u adeegsatay in ay ku weerarto kuna layso taasi ayaa muujinaysa in madaxtooyadu ay ka shaqaynayso sharaf darro soo gaarta sumcadda iyo sharafta maamulka Puntland iyadoo weerarkani muujinayo abaabul ballaaran oo lagu afduubayo hanaanka wanaagsan ee u shaqaynayo baarlamaanka maamulka Puntland lana doonayo sidii xoog gacanta loogu dhigi lahaa xarunta uu ku shaqeeyo si looga dhigto meel wixii la rabo lagu sameeyo
fiirsan karo. ugu dambeyn waxaan dadweynaha reer Puntland u cadeynayaa in weerarka xalay lagu soo qaaday xarunta baarlamaanka uu yahay dhaawac weyn oo soo gaaray habmaamuuska ee caasimadda Garowe iyo sharafteediba, ayna mas'uuliyadda dadka ay ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmaba ay qaadanayaan cidda ku tala gashay in xarunta golaha ay ka samayso rabshadahaasi amni soona handaday ilaalada xarunta lahaydna sababtay khasaaradaasi lixaadka ah. dhan kale tan ciidamadii ka tirsanaa daraawiishta Jubbaland ee ka gadooday ee magaalada Balad Xaawe ayaa galabta gaaray degmada Luuq ee gobolka Gado iyagoo markii dambe xoog ula wareegay garoonka diyuuradaha degmadaasi. ciidanka oo tiradiisa lagu qiyaasayay 150 askari sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku nool degmada ayaa kolkii hore lagu soo dhaweeyay Luuq kadib is-horistaag kooban oo ay kala kulmeen taliyaha saldhigga degmada, waxa ayna magaalada gudaha ay u galeen iyagoo rasaas dabaaldeg ah kor u ridaya. sidoo kale ciidamadan ayaa markii ay ka baxayeen Balad Xaawe waxay hore u kaxaysteen gaadiid ay lahaayeen dad shacab ah oo ku nool magaaladaasi, kuwaas oo ay ku tageen Luuq mana wadan wax gawaari ciidan ah. ciidamada ayaa la wareegay gacan ku haynta maamulka degmada, waxaana weli la ogeyn sababta ka dambeysa in ciidamadaasi ay qabsadaan garoonka oo ay horey uga sugnaayeen ciidan tiro yar oo ka tirsan Jubbaland. ciidanka hore ugu sugnaa degmada Luuq oo ka amar qaata maamulka Jubbaland si gaar ahna u hoostagi jiray wasiirka u xiran dowladda ee Cabdirashiid Janan ayaa isku dayay in ay garoonka ka hor istaagaan ciidankan gadoodsan oo ku qeylinayay farmaajo guul khayr guul iyo erayo kale. taliyaha saldhigga degmada Luuq Siyaad ayaa la sheegay in markii ay ciidankani soo galayeen degmada uu isku dayay inuu is hor istaago, balse waxaa ku soo baxay ciidamada Itoobiya oo qaybo ka mid ah magaaladaasi ku sugnaa, kuwaas oo taliyaha ku amray in isaga iyo ciidamadiisu ay magaalada dhinac ka degaan. xiisadda u dhaxaysa ciidankan ka amar qaata Jubbaland ee horey ugu sugnaa Luuq iyo ciidamadii ka goostay Balad Xaawe ee shalay galab gaaray Luuq. dhanka kale tan Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa ka qayb qaadatay munaasabad lacag lagu aruurinayay dadka ay fatahaadaha saameeyeen ee ku nool magaalada Beledweyne. Ilhaan waxay sheegtay in ay ka xun tahay khasaaraha gaaray dadkaasi. Ilhaan ayaa tiri caawa waxaan ku soo talagalay in aan ka qayb qaato taakulaynta, laakiin waxaan maqlay ciyaalkaaga badbaadso, ama haddii aad dana leedahay duco ha lagu daro, haddii uu dhib ku haystana ilaahay ha kaa badbaadiyo. marka waxaan rabaa in ciyaalkayga la iigu duceeyo, dhibaatooyin badan way haystaan, marka waxa aan bixinayaa ilaa $5,000 in aan ku taakulayo dadka walaalaheena ah, ayay tiri xildhibaan Ilhaan Cumar. Ilhaan Cumar waxa ay horey ugu baaqday in howlaha gurmadka laga qayb qaato si loo caawiyo dadka ay fatahaadaha saameeyeen ee dalka Soomaaliya. dhibaatada ka dhalatay dadka ee webiga Shabeelle ku fatahay magaalada Beledweyne ayaa keentay in Soomaali badan oo gudaha iyo dibaddaba ku nool ay isku xilqaamaan gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan magaaladaasi. dhanka kale tan madaxda laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa ka hor yimid natiijada ka soo baxday tirakoobkii dadweynaha Kenya. barasaabka ismaamulka Mandheera Cali Ibrahim, dhigiisa Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud iyo barasaabka dowlad deegaanka Gaarisa Cali Bunow Qorane, xildhibaano senatarada saddexda ismaamul iyo wakiilada dumarka ayaa dacwad la xiriirta arrintani u gudbiyey madaxda magaalada Nairobi. Masar Cali ayaa waxa aan la aqbali karin ku tilmaamay in tirada dadka ku dhaqan Mandheera ay noqoto 867,000 oo qof, halka sanadkii 2017 tiradooda codbixiyayaasha ay kor u dhaafayeen 1 milyan sida lagu sheegay xogta guddiga doorashada Kenya ee loo yaqaan IBC. dhanka kale tan barasaabka ismaamulka Wajeer ayaa tilmaamay in degmooyinka gobolka Waqooyi Bari tirada dadweynaha ku nool hoos loo dhigay, wuxuuna sheegay in guud ahaanba Soomaalida gobolka ay filayeen in ay kor u dhaafto 5 milyan, balse ay la yaab ku noqotay markii uu maqlay dadka Waqooyi Bari ay yihiin 2,490,000 ruux. si kastaba ha ahaatee, hogaamiyaasha Soomaalida Kenya ayaa rajo ka muujiyay dacwadda ay u gudbiyeen maxkamadda Nairobi. dhan kale tan maamulka Somaliland ayaa magacawday guddi ka shaqayn doona u gurmashada shacabka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay sameysay fatahaadaha webiga kaararka jabsaday ee Shabeelle. guddiga oo ka kooban 18 xubnood ayaa waxaa hormuud u noqon doona gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibrahim. xubnahan ayaa ka shaqayn doona aruurinta tabarucaadda bulshada Somaliland si loo gaarsiiyo shacabka magaalada Beledweyne oo xaalad bani aadanimo xilligani wajahaya.
gudoomiyaha rugta ganacsiga mudane Jamaal Caydiid oo la hadlay idaacadda waddanka ayaa sheegay in ku dhawaad 300,000 oo qoys ay ku barakaceen fatahaadaha webiga ayna wajahayaan gaajo qarkan ay u saaran yihiin cudurrada ka dhasha biyaha sida kaneecada iyo daacuunka. Mr. Jamaal ayaa ugu baaqay shacabka Somaliland in ay caawiyaan walaalaha beledweyne maadaama Soomaalida ay hal jir wada leedahay meel walba ay joogaan ay walaala yihiin. ugu dambeyn waxa uu sheegay in labada bulsho mar walba ay isku taageeraan dhibaatooyinka dabiiciga waxaana uu tusaale u soo qaatay abaarihii dalka ka dhacay sanadkii 2011 oo ay u gurmadeen shacabka ku dhaqan koonfurta dalka. dhanka kale tan gudoomiyaha guddiga farsamada maamulisida Galmudug oo ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen howlaha horyaala guddiga iyo sida ay u wajahayaan howlahooda. gudoomiyaha guddiga farsamada maamulisida Galmudug oo ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howlaha horyaala guddiga iyo sida ay u wajahayaan kadib markii uu kormeeray xarunta shirkole halkaas oo la dejin doono odayaasha dhaqanka ee soo xuli doona baarlamaanka maamulka. Cabdinaasir Geelle Cilmi ayaa sheegay inay geli doonaan hawsha qaybta labaad oo ah xareynta odayaasha isaga oo u mahad celiyay ciidamada sugaya amniga magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan goobta ay ka dhici doonto doorashada Galmudug. sidoo kale guddiga ayaa waxa ay kormeer ku tageen xarunta shirkole halkaas oo lagu wado in la dejiyo odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka maamulka Galmudug. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda ah maamulka Galmudug ayaa waxa ku wada sugan laba guddi doorasho oo ay kala magacaabeen dowladda Soomaaliya iyo madaxda xukuumadda ee Galmudug. Sheekh Shaakir inkastoo mas'uuliyiinta ahlu sunna ay sheegeen in ay arintaasi wada hadal ugula socdo dowladda Soomaaliya. dhanka kale tan gudoomiyaha maamulka Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa ceeriyay inta badan wakiilada Somaliland u fadhiya dalalka dibadda isagoona kuwa cusubna u magacaabay xilalkaasi. gudoomiye Biixi ayaa waxa uu xilalka ka qaaday wakiilo iyo ku-xigeenno badan halka uu magacaabana ilaa 9 wakiil oo cusub sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay qasriga uu ka degan yahay Somaliland. wakiilada uu ceeriyay ee Muuse Biixi ayaa waxa loo aaneynaya kadib markii uu gaabis weyn uu ku yimid olihii aqoonsi u helida maamulka Somaliland. wakiilada uu ceeriyay ee gudoomiye Biixi ayaa waxa loo aaneynaya kadib markii uu gaabis weyn uu ku yimid olihii aqoonsi u helida maamulka Somaliland kaasi oo ay dalalka caalamka kaga baadigoobayeen ictiraaf. qadiyada aqoonsi raadiska maamulka Somaliland ayaa waxa la dareemayay in bilihii u dambeeyay uu ku yimid gaabis weyn taasi oo loo sababeynayo fadhiidnimada wakiilada maamulka Somaliland ee dalalka caalamka taasi oo sababtay xilka qaadista uu ku sameeyay gudoomiye Biixi. ugu dambeyn diqooga farakabaxa ah ee ku gufaacaya hawada New Delhi ayaa dhici karta inay tahay kiimiko sun ah oo hawada ku buufiyay dalka Pakistan sida ku doodaya siyaasi Hindi ah oo soo jeediyay in arintani il dheer loo yeesho. waxaa dhici karta in gaas sun ah uu nagu sii daayay dalka Pakistan oo darisna la ah oo naga baqanaya ayuu yiri hogaanka Meerut JP Mefned Agwan Shad. waxa uu farta ku goday labada dal ee Pakistan iyo China oo safka hore ay geliyay. waxa uuna sheegay in Hindiya ay si dhab ah uga fikirto in Islamabad ay sun ku buufisay hawada Delhi. waxa kale oo sheegay in Pakistan ay aad uga cabsanayso Ra'iisul Wasaare Narendra Modi oo iskula jiraan xisbiga BJP isagoo ku faanay in Hindiya aysan abid ku guuldareysan dagaal ay la gashay Pakistan. dhageystayaal qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyay warkeena idaacadda intan ka gaarayna warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah.